markii ciidanka la qarameynayay markhaati waxaan ka ahay inuu habar jecel yahay inuu isba ka soo horeeyay isagu ciidanka dhulbaanta ka soo horeeyay Soomaaliland la wada leeyahay ayaan casoowan ugu soo gaadhay Soomaaliland nasiib wax u yeelatay labeentii harti inay halka timaado madaxdii ugu wanaagsaneyd ee Soomaaliland timaada inay harti ahayn beel intaasi ka tiri oo u dhigtaa ma jirin bal ninka harti oo ragga horgal ku sheegayo soo bax marka Soomaaliland halkaana way soo martay waa runta maanta way naga leexatay leexashadaana ma saddexda habrood mise reerka iyaga shuqul kuma leh waa la sii wadaayo xagga waxaan noo sii wadaayo nebiga annagana in yar baa noo hadhay waxaan la soo shaqeeyey qaybe waxaan la soo shaqeeyey sakhraan waxaan la soo shaqeeyey fagadhe waxaan la soo shaqeeyey muuse idaar waxaan la soo shaqeeyey xaabsade waxaan la soo shaqeeyey cabdidhibo waxaan la soo shaqeeyey jibriil cali salaam waxaan la soo shaqeeyey cali maxamed cumar gees maxaan ku idhahaa bayr oday سعيد قعبي مركا كريم كيارتي Soomaaliland nasiib waxa u yeelatay madaxdii ugu wanaagsaneyd ee Soomaaliland timaada inay harti ahayn beel intaasi ka tiri oo u dhigtaa ma jirin raad weyno way kaga tageeno waxaan ilaaway saaxiibka Cabdi Cali Shire oo raggii ciidanka dhisay Cabdi Samad markaa waxaan leeyahay Soomaaliland halkii hore lagu soo celiyay halkeedii lagu soo celiyay Soomaaliland intii quruxda badnayd ragga karaamo badan oo maanta de ninkii halka jooga waxa la yiraahdaa waa horgale yaa u quuray raggaas waa horgal may ahayn labeentii Soomaaliland baad labeentii harti bay ahayd iyagaana Soomaaliland dariiqa ku riday oo cagta u saaray wadada wanaagsan dagaalkaana waa runtii in laga aamuso may ahayn anigu kama aamusin laakiin halka lahayd bandhigay markuu madaxweynuhu noo yeeray weligiisa aan ula hadal baan ula hadlay waxaana weydiin doontaan markhaatiga ah Xuseen Aadan Cabde waxaan aniga madaxweynaha dhex maray marka waxaan leeyahay yeynanka aamusin shalayto waxa hadlay daraa waxa hadlay Zeylici wuxuu yidhi waa ayaan daro inuu xafladda waaweyn Hargeysa ku qabano dadkeenina maanta qaxooto ku yahay daadsan yahay buu hooday wixii sheegay waynaan soo hadal qaadin waynu nusqaan weeye aynu ka hadalno halaysu damqado siyaad barre waxa ina sii fogeeyey damqashalaan bay ahayd mujtamacii koonfur ku dhaqanaa xamar joogay markaa wax damqadaa laga waayo war dadka sina laga daayo haddaynu damqan weynana dee waa nusqaan dembina waynu ku gelaynaa markaa nin walba intaad ka qaban karto ee kaaga aadan ama adoo abaabulan adoo shakhsiga ka qabo